وفاطمة إبراهيم إسماعيل horta isdhexgalka maanta dadka reer Soomaaliland inay ka guuxaan shakiga waxa keenay dawaayilka caalamku marka ay shirayaan waxa la sameeyaa guddi farsamo labada dhinac iyaga foodaystara arrimaha ka soo baaran daga marka madaxda waaweyn fooda la iska galiyaa waxad moodaa guddigii farsamo in gadaal la mariyay oo dulba qodobkii yaray Jabuuti ku saxeexeen dood fara badan ka dhalatay qodobka hawaday noqotay horta hawadu waa kategoriga sare iyo kategoriga hoose kategoriga sare Soomaaliya maamusha kategoriga hoosena Somaliland buu daaradeeda maraa iyada maamusha marka Somaliland iyo Soomaaliya hay isdhex galaan hawadiina hal la wada yeesho anu waxaan malinayaa halka fiishiiba ku jirta midnimadiiba iska soo muuqata midnimo qudheeda maba diidayno madaxdayadaas meel kale wax mariyaan hadii la waayo waanu anu horta shakhsiyan halka madaxdaydu igu go'aamisan waan raacaya teeda kale mid kala yaala dastuurka Soomaaliland wuxuu qabaa in aan qarannimada Soomaaliland dib looga laaban doonin Soomaaliya waxa qabtaa dastuurkeedu in aan midnimadii Soomaaliya taakada laga tagi doono labada dastuur la isma soo hordhigin oo lama oran Soomaaliland ay hadaanu nahay sida aqoonsi ma ku heli karnaa hadii aad idinku Soomaaliya ay diidan tihiin inaanu annagu sidan aqoonsi ku helo waa hagaaga dadka iyaga reer Soomaaliland way balaaran yihiin maanta madaxweyne ku xigeen gudoomiye baarlamaan ay walba waanu helo waanu haysanaa idinkuna Soomaaliya kursiga noo haysaana ugu sareeya dawladda Soomaaliya waa ra'iisul wasaare ku xigeen waxa weeyaan aqalka sariya aqalka hoose waa xildhibaano reera iska keensada laakiin kursiga Soomaaliland dadkeeda loo hayaa waa ra'iisul wasaare ku xigeen madaxweynaha reer buu dabran yahay ra'iisul wasaaraha reer buu dabran yahay labadaas ba isku bedela gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliya reer bay u dabran yihiin Somaliland ma yoranin war hadii xitaa lacag ay isku soo noqono 4.5 baa wixii yahay daraadka ma masaxaysaano xisbiya ma la isugu imanayaayo kii xisbiga codkiisu bato dalka ma maamuli doona laakiin Somaliland anu waxaan ku leeyahay dunida aqoonsi kama waayo sababtoo waan ku tusaaleynaya jabhadii Bolisario Morocco midowga Afrika aqoonsaday kala badhow bad Soomaad garanin Kosovo boqol iyo saa'idal ayaa aqoonsaday Somaliland hal xubin oo dunida aqoonsi kama hayso sababtana waxa keenay cidna yaanay eersan Soomaaliyana ay eersan oo walaalaheed oo diin iyo diirba u xigay iyadoo hay seersato muran siyaasiya gudigan bedel sharciyan ku bedelo uma hayo war maayad soo degtayba dalka iyo dadka intii la badbaadin lahaa 30 jirka iyo 20 jirka iyo 40 jirka maanta jooga mustaqbal loo sameyn lahaa ee dhalinyaro iska daba kacday culays bay keentay hadhow waddankan aqoonsi loo raadin lahaa ayaa 70 jir iyo 80 jir maydkiisa laga dhax qaadan mooyaane ay mustaqbalkii dalka ku ciyaarayaan maanta aqoonsi aanu Soomaaliya oga maan baahdeen Soomaad garan oo walaalahaya oo hadii aqoonsi aan helo garabkooda aan ahaan lahaa oo aanu heelin lahaa oo aan garab joogsan lahaa oo halkan ka dhisi lahaa Soomaaliya taayidida waa Somaliland hays eersato 24 saacadood qodob siyaasi isku haystaan googa cigal leh marka waxba Soomaaliya yaan la xaqxagan